ku dhawaad 25 qof ayaa dhimatay tiro inta ka badan way dhaawacmeen dhul bahante iyo faqashinina waa islaynayaan baaqiyo caalami ayaa ka soo baxaya iyada oo xaaladdu ay ka sii dareyso marba marka ka dambaysa waxaa la baafinayaa aaway qalasiyadii qalas mahad qalas Ilyas qalas fiqi iyo qalasyadii gabdhihii habargeedu heesi jiray aawa qalasyadii Ilyas caana tagay alla soolay xagee ku dambeeyeen dhammaan waxaa la baafinayaa qalasyadii jaalla habargeedu kuwaasoo laga joogo dhulka meel kasta ugu ordayay laas caana taagnaa aaway qalasyadii aracdaya tagay aawaye xagee jirteen caawo haddaba waxaan kula wadaagi doonaa xogta rasmiga ah dagaalada socda iyo dadaalada la doonayo in lagu joojiyo laas caanood iyo qeybo ka mid ah gobolada maamulkan waqooyi barina waxaa ka socda dadaalo ugu dambeeyay ee lagu doonayo in lagu joojiyo colaadan soo dhawo muuqaalka la sar shargalay qaybta hoose ee commentiga afaalada noogu reeb haddaba maanta barqanimadii halka la yiraahdo ari cadeeye oo ka tirsan gobolka Sool waxaa weerar ku qaaday ciidan ka tirsan maamulka waqooyi bari ee ay dhawaan dowladda federaalka Soomaaliya dhistay kuwaasi oo ku hubaysnaa hub iyo gaadiid dowladeed oo kor u dhaafayay ilaa 20 tekniko maamulka cusbay ee uu hogaaminaya firdhiye ayaa sidaas lagu eedeynaya iyadoo hadda loo kala baxay laba qabiil ama laba reer dhul bahante iyo sidoo kale faqashin ciidanka degmada weerarka ku soo qaada ayaa shacabku u adeegsaday hub culus iyo mid fudud iyadoo oo qoryaha loo adeegsaday ayaa leeyahay inay ku jireen qoriga loo yaqaan suuga iyo sabanka oo loo yaqaan RPG waxaana rasaas ay ku fureen goobo ay ku sugnaayeen dad shacab ah oo waxba galabsan iyadoo la warinayo in saameyn culus ay ka dhalatay dagaaladii cuslaa ee ka dhacay qaybo kamid ah gobolka Sool waxa la soo warinayaa in qoryaha culus ay adeegsadeen ciidankan maamulka waqooyi bari lagu eedeeyay balse ah ciidan dhul bahanta ah oo qabiil u abaabulan sida wararka qaar ay nagu soo gaarayaan dadka waxyeeladu gaartay waxa kamid ahaa dad waayeel ah dad goobaha ku sugnaa oo dhalinyaro ahaa haween iyo sidoo kale caruur dadka deegaanka ah oo badankood qaxay qaarkoodna waxyeelo ay soo gaartay iyadoo la soo warinayay in tirada dhimashada ah ay ku dhowdahay ilaa 30 ruux oo sida wararku qaar aynu ku helino qaar kamid ah dadka la dilay ayaa ahaa waayeelo sariir saarnaa sida wararku qaar ay sheegayaan dad dhalinyaro ay dad shacab ah iyadoo aan waxba la isku reeban inkastoo la soo warinayo reerahan faqashini iyo dhulbahante in dagaalkooda uu ahaa mid isirsifeen ah oo saacado kooban lagu dilay ku dhawaad 30 qofood rasaas culus ayaa si joogto ah uga dhaceysay guud ahaanba xaafadaha ay degan yihiin dadka shacabka ah muddo saacado ah iyada oo gabaldhici ilaa caawa fiidkii dagaalo culus ay socdeen waxaana la soo warinayaa in dagaaladu ay saameyn weyn yeesheen sidoo kale ciidanka weerarka geystay ayaa jabsada sida la soo warinayo qaybo kamid ah guryo ay lahaayeen dad shacab ah waa la bilaqaystay goobo ganacsi sidoo kale waxaa la soo warinayaa caawa deegaanka cabsi xoogan ay ka jirto iyadoo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ciidamadu way soo fadhiyaan waana la iswacday iyada oo reer walba ciidankii uu haystay uu u yeertay ciidamada maamulka waxaa leeyahay dhul bahante waxa ay bilaabeen in ay soo afjaraan jiha kasta oo magaalada ciidankii iyo maleeshiyaadkii ku sugnaa halka shacabka deegaankuna ay ku jiraan cabsi iyo amni darro iyo xaalad kale oo sii xumaanaysa iyadoo oo lagu baaqay dhinacyadu inay joojiyaan dagaalka inkastoo la soo warinayo in suuragal ay tahay in saacadaha soo aadan uu aad u sii laba qarxo dagaalo culus oo halkaas ka dhici kara haddaba muuqaalo iyo sawirro halkaas laga helay waxay muujinayaan in xaaladdu ay adag tahay isbeddello waaweyn ay jiraan dagaaladu ay saameyn karaan dadka deegaanka xaaladan ay ka sii dareyso saacadba saacad ka dambaysa sawirrada iyo muuqaalada laga helayo ari cadeeye iyo guud ahaanba deegaanada dagaaladu ay ka socdaan ee gobolka Sool ayaa muujinaya burbur soo gaaray goobo badan oo ganacsi iyo guryo ay dad shacab lahaayeen iyadoo la soo warinayay in waa la arkayay dad dhaawacyo ah oo la jiidayo kuwa dhintay oo jawaano lagu riday oo la jiiday iyagana iyo go'aan lagu riday kuwaas oo la raba in meedadkooda lagala baxsado maleeshiyaadka weerarka soo qaaday goobaha ganacsiga rasaas ayaa gaartay dadka qaarkood badankood iyagoo ku sugan xaafadahooda waxaana taasi ay suuragal ka dhigtay leeyahay dagaalo culus oo halkaas ka dhacay dhacdadan waxa ay dhalinaysaa walaac xoogan oo aad u weyn oo ku saabsan guud ahaanba arrimaha la xiriira xaaladda amniga ee gobolka Sool maadaama dhismaha maamulkan dad badan ay u riyaaqeen oo ay aaminsanaayeen in maamulkan uu noqon karo maamul wanaagsan oo dadka u dhaxeeya maamulka waqooyi bari ayaa lagu eedeynayaa mas'uuliyadda weerarkan iyo dhibaatadan ka dhalatay iyadoo tani aysan ahayn markii ugu horeysay oo falal noocan oo kala ah isla markaana la soo abaabulay loo geysto dadka deegaanka sida wararku qaar ay sheegayaan laba toddobaad ka hor
ayay ahayd markii la gubay deegaan ay ku noolaayeen dad rayid ah oo reer guura ah oo kasoo jeedo degmada la yidhahdo Ari Caddeeye halkaas oo dad shacab ah lagu laayay sida dadka deegaanku ay nala wadaageen waxaa si adag loo cambaareynaya colaadan iyadoo baaqyo degdeg laga soo saaray sidoo kale falcelin adag ayaa ka taagan iyadoo dadka deegaanka lagu eedeynayo haddaba eedeyn culus ayaa loo jeedinayaa aaway dadkii matalaada ku lahaa Ari Caddeeye ayaa la leeyahay maxay uga aamusan yihiin dadka lagu laynayo awoodda maamulka iyo hubka dawladda arintani ma ahan mid la iska indhatiri karo ayaa la leeyahay waa xaalad u baahan in si degdeg ah looga falceliyo isla markaana loo guda galo si dagaalka loo joojiyo haddaba wadamo shisheeye oo kala duwan ayaa la soo warinaya iyo dad shisheeye oo gacmo shisheeye ah inay qayb ka yihiin ama ay raali ka yihiin dagaalkan iyadoo oo muhiimadda ugu weyn ee la eegaya ay tahay in dhibaatadan aysan ku sii faafin guud ahaan gobolka Sool haddaba wararka ku aadan arrimaha xaaladan gobolka Sool iyo wixii ku soo kordho halkan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa Aisha ku hay kacaanka xukuumadda kacaanka xilligeedii maalintii dhaweyd markii la furayay buugga markii la saxiixayay sharciga nin odayoo ka mid ahaa dadka waxbarto oo doctora ayaa meeshii kelimad ka jeediyay marka wuxuu yidhi hadda ka hor nin Suudaaniya oo dabcan saxafi ahaa oo wax ka qoray magaaladan Muqdisho waqtigii barisamaadkii ayaa Suudaan ayaa kula kulanay marka wuxuu yidhi magaalada Muqdisho waxaan xusiistaa adigu 80 meelahaas mooyee meelihii markaas Afrika oo aan maray wadanka ugu nadaafad badan ah ama ugu qurxoon xagga bilic marka dabcan magaaladan hadda aaday u horumaraysaa dad fara badan soo dawo xilligaas waxa laga yaabaa inaysan xaafadaha qaal jirin dadka deganaan in la is yaqaano dhowr boqol qof inay deganaan dhowr boqol kun qof inay deganaan laakiin hadda magaaladan dadkii reer guuraaga xitaa waa soo galay dad badan oo kala duwan yimid ilaa 3 milyan ilaa 4 milyan oo qof ayaa la qiyaasaa inay degan yihiin baaxadda dhismaheeduna aad iyo aad u fog waxaasoo dhan marka waxay wataan culays ay wataan oo keenaya kulama ganacsigu u bata ganacsigaas wax allaale waxa ganacsigaas ka imaahayo qashan waa wax soo baxaya maqaayadihi soo baxaya waxa soo baxaya yaani deegaanku kulama u bato waxa badanaya culayska maaragtay ay soo saarayaan qashinka badanaya qashinkaas marka dabcan qorshayaal la wada hadda laftirkeeda oo la kala saari doono oo qashin oo dareera iyo midaan dareera ahayn loo kala saari doono haduu Ilaahay gooba loo sameeyay oo loo cayimi doono ayaga labadooduba oo hadda waa la isku dhex daraa inta la kala bedelo midba goob la geey doono laakiin wacyigelinta wax ka muhiimsan ma jirto wacyigelinta dhalinyarada qaybtina ka qaata magaaladan adinka iskale inay qurxoonaato oo ay noqoto magaalo dalxiis inay noqotona dadkeeda ka shaqeyn kara ammaanka hadda magaalada Muqdisho maanta ay haysato oo lagu faanayo oo dawladdu ku faanayso oo magaalada Muqdisho dadkeeda ay ku faanayaan ciidan kaliya iyo askari kaliya meel taagan ma keenin bulshada qayb ka qaadata waxa marka hadii bulshadu qayb ka ahayn waxba lama dhaqaajin karo wax la dhaqaajin kara ma jiraan laakiin qof kasta markuu yiraahdo waxaan qalad weey waxaan magaaladeena qalad ku tahay nolosheena qalad ku tahay waxay qalad ceeb ku tahay deegaankeena qof kasta wax xishoonaay marka taasna casharadii halka ka qaadateen ku dabaqa annaguna maaragtay dawladdu sideedaba waxay dejidaa shuruucda inay maaragtay dadka kala dhicdo inay sharciyadii ku hagto ayay dejisaayeen dadka la rabo inay shaqada qayb ka qaataan shuruucdaas iyo waxaas la dejiyay ay u hoggaansamaan waa dadweynaha oo qof kasta uu yiraahdo uu ilaaliyo wixii la dejiyay marka taas waa muhiim qaybtiina qaata haduu Ilaahay isbeddelka cimilada dabcan adduunyada oo dhan way ka jirtaa isbeddelka cimiladu dabcan annaguna adduunyada ka mid nahay waa aragteen oo hadda abaaraha iska jira abaaro oo awala la arki jiray roob laga yaabo in 3 xilli oo isku xigta la weynayo weliga dalka kama jirin xaqiiqatan isbeddelka marka adduunyada ka dhacayo oo cimilada oo saameyn xoog leh nagu yeelato ayay ka mid tahay Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa maaragtay in uu
culayska iyo roob la-aanta uu naga qaado mar cimilada dee inay xumaato waxaa la yidhaahdaa geedahoo la jaraa keena waxyaalo badanaa la sheega marka maantana waa aragteen sida geedaheennii iyo dhulka deegaanka oo qof kasta uu saxil iskaga saarayn iyada waxaasoo dhan dowlad la-aantaa keenta waxaasoo dhan dowladaa ilaalina horta waa inaa ogaatiin shacabku markay helaan shuruuc iyo nidaam iyo kala dambeyn iyo dowladnimo ayay iyaduna gaalada adduunyada arkaydiin oo laydin leeyahay waddankoodu waa khatar waa fiican yahay waa ammaan waa wax gaalo ka axmaqsan uma jiraan akhlaaq darra haddii la yidhaah faham xumo haddii la yidhaah laakiin sharciyay leeyihin sharcigaasaa kala celiya bis qof kasta sharcigaas ku cabsana mid baabuurka meesha uu dhiganayo sharcigu ka cabsanaa jidka markuu maraayo sharcigu ka cabsanaa qof hadduu dilo sharcigu ka cabsanaa wax kasta asaga sharcigaasaa uga weyn ma ahana mar hore eber iska dhigi lahay adduunyadana waa la ogyaha dagaaladii hadda adduunyada dagaalkii labaad iyo dagaalkii koowaad adduunka wixii ka dhacay iyo sidii laisku halaageen waa ogtay laakiin kadib sharciyay degsadeen qof kastaa sharcigaasu ka cabsadaa annaga hadda diin aana celinaysa diinaana celinaysa dhaqanaana celinaya dad isku midab iyo isku af iyo kulligeen wada walaalaaho meelna aa kala jirina waxaasoo dhanaa lagu kala xishoodaa lagu kala cabsadaa la ixtiraama wax ay ixtiraamaan dadkaas ilaa waxaaba laga yaabaa ma og tahay ninkaan aabbe iyo hooye asagoo lahayna laga yaabaa dalkan madaxweyne iyo wasiir iyo ra-iisul wasaare inuu ka noqdo maxaa keena sharcigaa u degsan sharci la yidhaahdo sinaanta ayaa u degan iyo cadaaladda qofkaasu waxaa muhiima muwaadin inuu yahay sharcigii haysto waxbartay xisbi ka mid yahay muwaadin yahay dalkiisaasu maaragta uu dhinac ka galay akhyaaray marka hadduu ilaahay yidhaahdo waa mahadsantihiin dhallinyaroy aada iyo aad bay ay u fiican tahay in maantay intii halkan laga sheegay haddaan hirgelinno oo dhaqan gelinno oo percentage jir xataa aan ka hirgelinno oo qof kastaa gurigiisa markuu u noqdo oo intaas yartaa yidhaahdo qashinka halkan ha dhigin amniga maaragta wixii ceebka oo u arko inuu maaragtay yidhaahdo waxaan waa qalab wax badanaa hirgelayo berri intoo kale haddii lagu daro berri dambe intoo kale lagu daro berri dambe wax walba waa noo hagaagaya hadda dabcan halkan waxaa laga hadlay oo hibaar gabadha xildhibaanada ay ka hadasho gabdhaha in culays lagu hayo de dabcan horta gabdhuhu waa sax waa ka nugul yihiin ragga waa ka nugul yihiin waa hooyo waa walaal waa habaryar waa eedo aada iyo aad in loo ixtiraamo de dabcan dadka soomaaliyeedna waa ixtiraamaan xaqiiqatan gabdhuhu martabo sare ama qiimo sare ayay uga jiraan bulshada markii la yidhaahdo iyo ilaalinteeda marka waxyaalaha dhacayana dhalinyaro fara badan oo iskugu jira oo hadday anshaxumo tahay hadday qaabdarro tahay wiilal iyo gabdhabo iskugu jiraa sameeya oo dee aada arkaydiin oo maalin kasta lasoo xiraaya oo booliisku xiraaya gabdhuhu marka sideedaba in la ilaaliyo la qadariyo la qiimeeyo xornimo ay dareemaan aada iyo aada ay u fiicanta gabadha hadda oo maalmaha baraha bulshada ku jirtay oo dhallinyaradu maaragtay ay ku xadgudbeen insha allahu tacaala haddana waa lagu jiraa hawshaas dadkaasna cadaaladday hor imaan doonaan maalin waxaa jirtay qofna la soo qaban jirin qofku suu raba uu iska yeeli jiray qofku ka cabsaaya aysan jirin wuxuu raba uu iska samayn jiray laakiin maantay sharci iyo kala dambeynaan leen waxaad arki doonteen insha allahu tacaala maalmaha soo socda ayagoo kasoo hor muuqday maxkamada iyagoo dadkaas kasoo hor muuqda marka yaa lagu xadgudbin gabdhaha yaa lagu xadgudbin hooyooyinka yaa lagu xadgudbin dadka nugul oo dhan yaa lagu xadgudbin wiil iyo gabarba waxaa laga rabaa inaan ixtiraamno diinteenna suuban dhaqankeenna suuban dowladnimada dalku sidii hore maaha oo qof kastaa wuxuu raba inta iska sameeyo uu iska tegaayo halkaas waa ka soo gudubnay maantay
ولا لا حساب تمايا قفكي غلط كذا قفكي دينتك واحد بالبال لا حساب تمايا قفكي دتك يعني ويل يا جبربة قفكي كحد بالبال قف وحوسا كم تيسا قسمه هدو جبري هي هدو ويل يهبه شرعيا ما أنت تجرا والوساق بناه إسكا إلالي إن الوساق سوشيال ميديا هسيدا قلد الله استعمالها هنا حل إسكا دافو سديد سوشيال ميديا هداد سفع عنو استعمالي كرتبنا استعمال هداد استعمالي كريم إسكا دافو سوى نم يسمال مال قلد يوسن لقلي إلى أن يقول هالشيء فيه قف على الحمينة قف كي الحمينة يا الحما إن لقدوبه magaaladana waa aragteen meel kasta camera ku dhagan hadda imisa qofa inta gashay qalad ayaa iyagoo ogeyn kamerada inta la tixraaca la soo qabto meel meeshaan adinka hadda ma ogidine kaamerooyinka yaalla haddaa arki lahaydeen qof kasta gurigiisa iyo qof kasta meeshuu maraayo iyo qof kasta wuxuu sameeyo si kaleer hadu arkayda marka dalku waa ka soo gudba meeshii shalay qof inta dambiila oo dambi iska sameeyo iska dhuumanayo ama iska tagaya ma jiro waa iska dhuuma karaa laakiin asagana waxaa la rabaa magaaladan iyo meeshuu mari jiray iyo meeluu iska baashaari jiray siduu baashaari lahaa maanta waa kaasa hadda nimankii daraad yani qaladka ku tilaabsan ayagaa laga rabaa meeshii ay geli lahaayeen laga rabaa sharciga daba jooga waana la soo qabaa hadduu ilaahay yiraahdo marka aniga waxaan rabaa inaan soo gabagabeeyo dhalinyarada waa mahadsan yihiin maamulka dhalinyarada gudoomiyaha dhalinyarada iyo dhalinyarada degmooyinka dhammaantiin waa mahadsantihiin ardada Soomaaliyeed oo halkaan maaragtay ka soo qayb gashay iyo dhammaan xildhibaanada golayaasha deegaanka xildhibaanada golaha deegaanka insha Allah taala maalmaha soo socda dowlad doontiin madaxdeeni inuu hogaami lahayd hadduu ilaahay yiraahdo u diyaar garooba aminkuna insha Allah taala marka waxaan leeyahay soo dhawaada FCA ayadana waa mahadsan yihiin waa shirar ama madalo noocan oo kala ayay aad iyo aad markasta uga taageeraan gobolka Banaadir maamulka gobolka Banaadir aad baad ugu mahadsantihiin adinkuna gudoomiye shaqada halkaa laga sii wado waxaana la rabaa maalmihii xurriyadda 26 Juun iyo 1 Luulyo waa soo socdaan waa dhow yihiin maalmahaas waxaa la rabaa si fiican in looga qayb qaato dhalinyaradu jidadka ay isugu soo baxaan liido iyo meelaha la isugu yimaado isugu soo baxaan muujiyaan nabadda iyo farxadda magaaladan ka jirta dalka ka jira dhammaantiin waa inaa u diyaar garowda haddii ilaahay yiraahdo aad iyo aad baad u mahadsantihiin